booliska dalkaana hoo diriska waxaanu qaaday dambiga dhacay mikiyo difaaca ka soo socdo midkii tagay dabagalkiisa ilaalinta danaha guud ayaanu diyaarsanahay waxaa la soo saaray bayaan iyo xaaladda degdega ee dalku oo dhan baa bayaankiiba waxaa la soo saaray bayaanka xaaladda degdega ayaa la soo saaray bayaanka xaaladda degdega marka la saaray waxaa weeyaan waddanku markuu dhibaatooyin noocan uu qabsado oo waddanka qarannimada iyo jiritaanka dalka wax burburinaya markuu yimaado markaasaa bayaanka la soo saaraa bayaankaasi markaa tiirsigiisu wuxuu yahay 5 isbaara 2014 markaan faahfaahinta gudaha kale bayaankan wuxuu dhigay bayaanka xaaladda degdega wuxuu dhigayaa markii dalka bayaanka xaaladda degdega lagu soo rogo ama awir buu leeyahay waxyaalaha mamnuuc uu leeyahay qodobo badan buu leeyahay qayb tub ka kooban yahay bayaankaasi marka anaga bayaankaasi waxay naga qoseeyaa anaga ahaan anaga faahfaahinaya bayaanka tirsiisu waa 5 isbaara 2014 qaybtiisa labaad markaad fiiriso qaybtiisa afraad markaad fiiriso wuxuu dhigayaa waxyaalaha reeban ama ka mamnuuc ah in la sameeyo muhiimaduna taan bay tahay inaan ka qaadano anagu waayo anagu filintii baanu nahay ama hortan fulinaya anaga weeyaan ama horta markaan fulinayno waxaan u sheegaynaa dhammaan waxyaalaha lagu mamnuucay bayaankan xaaladda degdega qodobadaasoo ilaa 8 qodob bay ka kooban tahay marka 8 qodobani waa waxyaalaha reeban ee ka mamnuuca uu bayaankani xaaladda degdega u mamnuuca weeyaan markaan ka soo bilaabo qodobka koobaad wuxuu dhigayaa shakhsi kasta iyadoo laga duulayo shakhsi kasta wuxuu ku qasban yahay in amaawirta uu bayaankani xaalad degdegi amaawirta laga soo saari doono dhammaan marka hore in loo hoggaansamo oo la fuliyo ruux kastana wuxuu ku qasban yahay waxyaaba bayaanka xaaladda degdegi uu dhigayo in cid kasta iyo shakhsi kasta inay fuliso uu ku amraya qodobka labaad wuxuu sheegayaa iyadana xilliga xaaladda degdega lagu jiro cidda ka hor timaada amaawiirta uu dhigayo xeerkani waa ka mamnuuc iyadan in laga hor yimaado waxyaala badan oo lagu soo faahfaahin doonaa jira bayaanka marka la soo saaro amaawiro badan baa iyadan la soo saari doonaa oo guddida ugu sarreysee kule shalay arkaysan laga magacaabay guddidaasi kolba amaawirta ay soo rogtay iyaguna amaawirta iyagoo bayaanka ku saleynaya waxaa loo baahan yahay iyadana in amaawirta loo hoggaansamo dhammaan loo hoggaansamo markaan sii faahfaahiyo taas markaas waxyaabaha iyaguna reeban ee ka mamnuuca waxaa ka mid ah cidda mabaadiida argagixisada ama nabadiidka ama TPLF juuntaaga waxaan naqaano cidda dhiirigelisa ee social media ku dhiirigelisa ee kusoo qorta ama qoraal wax dhiirigelinaya samaysa iyadana waa ka mamnuuc weeyaan bayaankana wuxuu xirinayaa ciddii dhiirigelisa ee qoraal dhiirigelin siinaya wax iyadana waa ka mamnuuc weeyaan in dhiirigelin social media iyo waxyaala ama meelo kale laga hadlo oo la dhiirigeliyo la buunbuuniyo heerkani waa ka mamnuucde iqaab ruuxaas mutaysanaya iyada lafteeda haddii iyadoo lagu helo ruuxa dunuubta noocaas lagu helo way sii faahfaahinayaa hadallada dhiirigelinta markaan leenahay waxyaaba badan bay soo gelaysaa dhiirigelintu laakiin markaan dhiirigelin leenahay inuu ruuxu si cad u buunbuuniyo hadda maalmahan waxaa ka jiro dhawaad arkisin dad badan baa qoraalo badan facebooka soo dhiganay oo dhiirigelinayay nimankan cadowga sida juuntaaga oneeg shane al-shabaab intaba isku wadara xaaladda degdegi waxaa loo soo rogay waa wixii kasoo horjeeday lidku ah qarannimada iyo jiritaanka dalkeena Ethiopia yaa dhammaan iyo wixii nabadda inaga soo horjeedo dhan wuu qosaysaa bayaankan ha ugu horeeyaan nimanka juuntaaga ama TPLF ugu horeeyaan marka waxa alla wixii ka hor imanaya bayaankaas cid kasta oo ku dhaqanta xeerkani wuxuu noo fasaxayaa in tallaabo sharciga ku habboon laga qaado noo fasaxayaa sharcigani xeerkani qodobka afraad markaan sii faahfaahino wuxuu dhigayaa si toos ah iyo si dadbanba si toos ah iyo si dadbanna
عدة نبديتك سيدا تي بي ال اف جونتاغا الشباب شني عدي وعاوسة لعق دقالة حق قلب يرجلين بعتيسة لما يدنا هركاس حد جاية إن يدنا وكم ممنوع وإحنا عاصر الروح إنه كل يرجليه أما حق سيو أما دقالة سيو قضب كانوا يحيرنيها إنه كم ممنوع ياهي عدي كنا قنتين تلابا لقى قاضي يشرع جن دقيقة lasoo saaray bayaankan xaaladda degdeg ee dalka lagu soo rogay wuxuu dhigayaa dhammaan ciddii waxyaalahan soo sheegay ku caawisa nabadiidka iyadana inta laba laga qaadi doono inayna mamnuucna horta marka hore waa mamnuuc waa la mamnuucay ciddii ku dhaqanta laakiin tallaaba laga qaadi ka dhiganta markaan usii dhaadhacno iyadana qodobkaasi innaga runtii dhinacyada badan inta badan inoo qusaysa waxaa weeyaan propaganda badan baa jirta propaganda waa mid halis weeyaan waa mid cadowga dhiirigelin u noqonaysa waa mid cadowga taageeraysa waa nimanka TPLF siiba gaar ahaan nimanka TPLF ee maanta dagaalkan kula jira odogtiin xaaladooda dadkeenu marka way boonbooniyaan way dhiirigelinayaan waxyaalo badan oo dhiirigelin buu sameyn dhalinyaradii bay wax been u sheegayaan oo suuq la gelinaya dhibaato aan jirin iyo meel ayna qabsanin bay dadka odhanayaan way qabsadeen halkaa qabsadeen waxaasay sameeyeen taasi waa dhiirigelinayo qodobka qaybta labaad qodobkiisa afraad ayaa wuxuu dhigayaa cidda waxaas oo dhan ku dhaqanta iyada lafteeda waxaa samaysa in sharcigu tallaabo ka qaadi marka hadda waxaa looga digayaa laakiin waa mamnuuc qodobadaan soo sheegnay ciddii samaysa tallaabaa laga qaadi in la siiyana waa ka mamnuuc weeyaan waxyaalahaas noos marka ruuxaas hadduu ku dhaqmo markaa qodobadan hadduu ku dhaqmo tallaaba laga qaadi ba ka dhiganta markaas marka waxa weeyaan dadkeenu inta badanaa waad ogtii maalmaha dhid waxaa la sameynayay loo dhiirigelinaya cadowga juuntaaga oo kale weliba TB left dadka soomaalida weliba qaarka soomaalida ayaan odhanin dad badan oo dhiirigelinayaa jiray innagoon ogsoonahay 27 sano u dambeysay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan deegaankeenna dhibaatada ay TB left soo marisay innagoo og ayaa haddana aad moodaaba dad badan inay u hanqaltaagayaan inay yimaadaan waddanka soo galaan yaad moodaa oo si cad waan ku arkan social media waad aragteen marka bayaanka xaaladda degdega annaga awood buuxda noo siiyey dhammaan qodobadan soo sheegay cid alle ciddii ku dhaqanta inaan tallaabo ka qaadno sharcigaan noo ogolaanay laakiin hadda waxaa loo sheegayaa bulshada waa la wacyigelinayaa waan u sheegaynaa qodobadaas waa mamnuuc qodobada reeban in lagu dhaqmo weeyaan haddii la galana sharcigu muxuu sheegayaa in tallaabo laga qaado weeyaan waxaa iyadoo kale iyadana mamnuuca qodobadani qodobka shanaad muxuu sheegayaa guddiga ugu sarreysa cid ayna u fasixin waa guddiga amniga ee loo asaasay fulinta bayaankan xaaladda degdeg ah cid ayna ogeyn ayna iyagu u fasixin ama ayna ogeyn shir ma qaban karto barnaamij ma soo qaban karto meel iskuma ururi karto shirar totally waa ka mamnuuc barnaamijna sabab iska badaa in shirana aan ogeyn oo kala gedisan la qabto cid dooni ha qabsato in barnaamij aan la ogeyn la qabto intaba dhammaantood xaaladda bayaanka degdegii waa mamnuuc waa ka mamnuuc in la qabsado shir lama qaban karo barnaamij lama samayn karo ilaa ay ogaato guddida ugu sarreysa amniga gaar ahaan xaaladda degdega loo asaasay ilaa ay ogyihiin mooyaane waa ka mamnuuc weeya iyadana intaana iyadana la ogaado waxaa iyaduna mamnuuc ah hub ama hubka qaybihiisa kala gedisan ama qori noqdo ama baskoolada ama bama noqdo ama waxyaalo kale guddida iyo hay-adaha amniga sida ciidamada qaranka oo kale booliska iyo guddigani amniga loo asaasay gaar ahaan fulinta xaaladda degdega bayaanka xaaladda degdega cid ayna ogeyn qori ma wadan karto iyaduna waa ka mamnuuc qori noocyadiisa kala duwan ama aka haato ama baskoolada haato ama bama haato ama wixii adu hub una dhammaan waa mamnuuc iyadana in la qaato iyadana waa ka mamnuuc weeyaan waxaan kaloo intaa raacin lahaa iyadana in bulshadu ciddii hub sharci darra haysata iyadana sida ugu dhaqsaha badan inay isu soo diiwaan geliso baaritaana la samayn karaa guryaha la baari karaa meheradaha la baari karaa waxyaalo badan baa la samayn karaa iyadana marka dhammaan ciddii hub sharci darra haysata iyada lafteeda inay 2 cisho gudahood ay kusoo diiwaan geliyaan
laba cisho gudahood inay isku soo diiwaan geliyaan ay keenaan isku soo diiwaan geliyaan haddii kale hadhow markii qori sharci darro ciddii lagu qabta sharciga unbaa loo dhaweyn sharcigu markaa wuxuu siiya muqaadar ruuxaas laakiin intaa ka hor jansi baan siinayna laba cisho gudahood wixii alla wixii hubaya sharci darro ah oo shakhsiyaashu haystaan inay soo diiwaan geliyaan inay keenaan xarumaha booliska inay keenaan ay soo diiwaan geliyaan gobollada kalena waa sidoo kale gobolladana xarunta booliska ugu dhow inay nin walba kasoo diiwaan geliyo hubka sharci darro nin walba haysto lasoo diiwaan geliyo laakiin ciddii lagu helo isagoo hub sharci darro haysta iyadana tallaaba laga qaadi laakiin fursad baan siinaa cid alle ciddii hub sharci darro haysata iyo deegaanka ku haysata ama baskoolad haato ama qori haato ama bambooyin haato ama wax ku haato inay soo diiwaan geliyaan inay hubka keenaan soo diiwaan geliyaan ciddii laga hub sharci darro wadata iyadana waa mamnuuc weeyaan markaan saalahay innaga laakiin bulshadeenu innaga deegaankeena ogsooni waa deegaan nabadgelya wax dhibaato ma jirto markaas in iyagana deegaanka uu taxadar badan sameeyo bulshada inay booliska la shaqeyso hay-adaha amniga guud ahaan in la wada shaqeeyaan bayaanka xaaladda degdega ama marta kasoo baxda in say tahay loo fuliyo ay bulshadu ay dhaqan gelisay ayaa loo baahan waxyaalahan kor kasoo xushnay oo dhan bayaankani uu soo dhigay bayaankan lagu qeexay ee lagu faahfaahiyey iyadana in siday tahay loo qaato bulshadana u qaato qodobadaana in laga waantoobo way reeban yihiin waa ka mamnuuc ciddii qodobadaa ku xadgudubtana sharciga ayaa faafan iyadana warar aan loo baahnayn in social media la dhigo propagandooyinka noocaas ee dhiirigelinaya cadowga iyada lafteeda TB lafta in lasoo dhigo waa waxa ugu sii daranaya inaga deegaankeena kaliya inawaar inaga weeyaan dhalinyarada wax beena loo sheego halkaa bay qabsadeen balaayo soo dhowyiin adhisaa way qabsanayaan waxaasoo dhan waa waxyaala mamnuucani cidda hubka sharci darro haysta iyada laftana ciddii inay soo diiwaan geliyaan dadku intaan la qabanin inay soo diiwaan geliyaan sida ugu dhaqso badan inay soo diiwaan geliyaan waayo way ogtiin hub sharci darro ah waa ka mamnuuc hub sharci ruuxu iskaasta inuu guryahaas kaasta hub sharci darro ruux dambi bay ku noqon hadhow marka waxa weeyaan bulshadu bayaankan xaaladda degdega inta lagu jiro inay taxadaraan weeyaan dad badan oo inta loo sheego waxan oo social media waa la soo dhigay waad ogtiin bayaankan haddana wixii kusii socoto dhiirigelinta weli sii wada social media iyo wixii oo dhan kasii wata ayaa jira qodobkan xeerkan uu ku qabanaya markaas ta kale waxaa iyadana shir aan la ogeyn totally waa ka mamnuuc guddiga amniga ugu sarreysa ee loo aas-aasay bayaanka xaaladda degdega inay fuliyaan cid ayna ogeyn lama qaban karo waxayna ogeyn lama qabsan karo shirayna ogeyn lama qaban karo banaanba lama qabsan karo ciddii qabatana waa dembi weeyaan marka anigu waxaan ku adkeynayaa oon bulshada u sheegaya xaaladdan degdega ama awrtaa uu waxaa ku cad qodobadaa ku cad ee reeban uu mamnuucay in la sameeyo inay bulshada iyaduna say tahay u qaadato lagana taxadaro nin walba aayar isagu si nidaama hay-adaha amniga kolba waxay yidhahdaan ama awrta ka soo baxday kalena ama awro badan baa lasoo saari doonaa waxyaala badan baa lasoo regi doonaa dhammaan bayaankan waxaa ku hoos duugan iyaguna ama awro badan oo guddidan loo aas-aasay soo saari doonto ama awrta kolba lasoo saaro iyadana siday tahay loo dhaqangeliyo oo loo fuliyo weeyaan iyadana xeerkan ciddii jebisa maan eegayna anagu dee ninka dibadda iska jooga waxba ogeyn taa waxaan odhan karaa nin dibadda iska fadhiya adaaba di ka xoogaalsan halkan fadhiya sooma oo jijiga jooga ama adhisaba jooga sooma maxaabaad u maqli kaas dibadda ku jira beenta intu kursi iska fadhiya waxba ogeyn iska soo toosan iska soo qoraya beenta buunaya waxyaalahan jirin dhiirigelinta sameynaya adigu dalkan jooga inaad ku dayataa ma bahaba adigu waa mamnuuc annaga ciddii dalka gudihiisa joogta ee deegaankeena weliba joogta ee ku xadgudubta bayaankan xaalad degdeg ee lasoo saaray ku xadgudubtay qodobadan soo ku xadgudubtay iyada tallaabo sharci gooban baa laga qaaday iyada booliska dalkaan ahoo diriska waxaan u qaaday dembiga dhacay minkiyo difaaca ka soo socdo midkii tegay dabagalkiisa ilaalinta danaha guud ayaanu diyaarsanahay